madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu maalintii Khamiistii shirgudoonka golaha guurtida u gudbiyay warqad ku aadan qabsoomida doorashada oo ay u soo gudbiyeen komishanka doorashooyinka Soomaaliland isla markaasina ay ku caddaayeen inaanay komishan ku qaban karin doorashadii waqtigii loogu talagalay waxaana madaxweynuhu ka codsaday mudanayaasha golaha guurtida inay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga haddaba markii warqadaasi soo gaadhay shirgudoonka golaha guurtida ayaa waxa mudanayaasha golaha guurtida la isugu yeeray inay fadhiyaan caadi ahayn isugu yimaadaan maalinta Sabtida subaxii hore ee saaka ayaa mudanayaashu waxay soo buuxdhaafiyeen xarunta golaha guurtida Soomaaliland fadhigan aan caadiga ahayn ayaa waxa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan haddaba markii uu fadhigaasi furay gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa waxa uu mudanayaasha golaha guurtida ku wargeliyay in ay wax qabiye ka yihiin xagga shirgudoonka isla markaasina waxa uu mudanayaasha u soo jeediyay inay maanta fasax tagaan barina ay isugu yimaadaan fadhigan aan caadiga ahayn ilaahay nagu anfaco quraanka inoo akhriyay kaloo aad iyo aad ugu mahadsan yahay sida uu dadaalka ugu muujiyey hawlihiisa aad baa u timaaday aad baa ugu mahadsantiin waxaan jeclahay inaynu shirkeenna berri ka dhigano sababtoo ah waxoogaa baa qabya maaha xaggeena xaggii habaa qabyaha waa caddaysanaynayaa berrito haddii aan la yidhaaho ninkoo raalle ah qabyadu xagga wixii laydin horkeeni lahaa weeye waa inoo berrito madaxweynaha Soomaaliland warqadani uu soo gudbiyay shirgudoonka golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa ka maqan doorashadii golayaasha deegaanka dalka isla markaasina waxa ku xusan oo kaliya doorashada golaha wakiilada Soomaaliland warqada uu soo gudbiyay hadaynu dib u eegno madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay u taalaa sidan ku gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan og gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ujeedo doorashada golaha wakiilada mudane gudoomiye waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qoraalka guddiga doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland ee sumadoodu tahay GDQ/SK/056/2018 kuna taariikhaysan 17 bisha 2018 ujeedadiisuna tahay in doorashooyinka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qorshaysneed in la qabto 19 Maarch 2019 aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan u qabsoomi karin sidoo kale waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qoraal kale ee guddiga doorashooyinka qaranka kuna taariikhaysan 19 bisha 12 2018 ujeedadiisuna tahay soo jeedinta guddiga doorashooyinka qaranka ee muddada ay ku dhameystiri karaan jadwalka howlaha doorashada ay ku qaban karaan oo ah muddo 10 bilood ah oo aan lahayn hakad iyo kala go' midna sida darteed maadaama guddiga doorashooyinka qaranku ay cadeeyeen in aan doorashada golaha wakiilada ku qabsoomi karin muddadii hore loo cayimay waxaan idin soo jeedinayaa in aad ka gudataan waajibaadkiina dastuuriga Allah mahadle Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland warqadani ayaan gabi ahaanba ku xusnayn doorashadii golayaasha deegaanka dalka ee markii hore ahayd inay isbarkan yihiin balse haatan uu madaxweynuhu kaliya u soo gudbiyay qabsoomida doorashada golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale wararku waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland uu qorsheeyay in uu kala diro golayaasha deegaanka dalka ilaa inta waqtiga doorashada laga gaarayo soona magacaabo maayir iyo maayir ku xigeen si gaarsiiya inta laga gaaray waqtiga doorashadu qabsoomayso